بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal dhammaantiin waa salaamantiin meel walba adduunka aad ka joogtiin. waa arrimaheena oo maanta ku tusin doono sida loo tirtiro software ku jira computerkaaga. cashirkan oo marka labaad aan diyaarinayo. cashirka hore aan diyaariyay sida loo tirtiro software wuxuu ahaa Windows XP, laakiin midkan waa Windows 7. way kala gedisan yihiin markii aad aadaysid sida control panel. tusaale ahaan waxa u baahanahay inaan tirtiro software-kan ku muuqda Virtual DJ. haddii aad tirtiraysid software waxaa u tirtiri doontaa qaab maaragtay si macquul ah computerkaaga dhan aad ugu tirtid. laakiin dadka qaar waxay isticmaalaan markay software tirtirayaan waxay u tirtiraan sida sawirada, videoga, muusiga camal. waxay sameeyaan right click ay dhahaan kadibna waxay taabtaan delete. haddaad delete ahdid oo yes aad taabato kulli wuxuu software-kan computerkaaga weli uu ku jiraa wuxuu aadi doonaa recycle bin. so hadda waxaan ku tusinayaa sida ugu fudud ee aad u tirtiri kartid software-ka computerkaaga dhammaantiisa saa ugu bixin lahayd. okay, haddii computerka Windows XP yahay sida hore idinku sheegay cashirkaas hore ayaan ka diyaariyay uu ku jira YouTube-ka waa raadin kartaa. laakiin midkan waa Windows 7. Windows 7 marka software-ka tirtiraysid waxaa sameynaysaa dariiqadan hadda aniga aan sameynay ayaad raacaysaa. okay, waxaad imaanaysaa start menu. start menu inta imaan ka hor waxaa hubsanaysaa programka aad tirtiraysid inuu yahay waa hubsanay magacaas. hadda waxaan tirtirayaa Virtual DJ. okay, start menu kadib waxaad taabanayaa control panel. control panel markuu ku soo baxo waxaad arki doontaa qaabkan. haddaa qaabkan arkayso waxaa laga yaabaa inaad arki doontid qaab sidan oo kale ah ama waxaad arki doontaa qaab oo sidan oo kale ah. waxaa muhiimad ah inaad raadisid uninstall programs. hadda laakiin sidan haddaa ku arkayso computerkaaga waxaad samaynaysaa halkaas view by ay ku qoran tahay ayaa furaysaa kadib waxaad dooranaysaa category. kadib si fudud ayaad u arki doontaa programs ayaa halkan arkaysaa kadibna waxaad taaban doontaa uninstall a program. uninstall program aad taawado waxaad arki doontaa computerkaaga inta program ku jirta ee ku install garaysan. so aniga hadda waxaan tirtirayaa software-ka Virtual DJ. hoos ayaan aadayaa si aan u raadiyo magaca Virtual DJ. baka Virtual DJ. marka software-ka aad tirtiraysid intaan aad arkayso magacadan dhan oo software-ka computerkaaga ku jira. hadda Virtual DJ ayaa riixaya kadibna waxaa taabanaysaa halkaas kore ee ay ku qoran tahay uninstall this program. wuxuu ku dhihi doonaa ma hubtaa inaad software-kan computerkaaga ka masaxdid. kadib halkaas ayaa check siinaysaa kadibna yes. intaas kadib waxaad arki doontaa inuu shaqeynayo uu ku dhahayo please wait. waa yara sugaysaa ilaa uu ka dhammaynayo howsha uu hayo. waxaa laga yaabaa inuu ku dhihi doono ma rabtaa all settings oo database-ka ku jiro computerka ee software-ka aad tirtiraysid macnaha koobigiisa documentigiisa waxaa samaysa projectiska kulligooda inaan kaa tirtiro ma ogoshahay uu ku dhihi doonaa yes. waa ku guulaysatay software-kaas wuu baxay. haddaa imaano shaashadda ma saarna wuu baxay wuu tagay. Virtual DJ waa ka tirtira computerka. sidaas ayaa software kasta aad ugu tirtiri kartaa computerkaaga. waa rajaynaa inaad ku fahmi doontaan. sidaas ayaad ku tirtiri kartaa software-ka. waa rajaynaa cashirkan inuu ku cajabin doono oo aad ka heli doontid. teeda kale waxaa u sheegayaa daawadayaasha inay soo socdaan casharo aad muhiim u ah ee maaragtay ku saabsan IT. waa rajaynaa inaad ka faa'iidaysan doontaan. waxay idin tahay fursad qaali ah. waa salaamantiin dhammaantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.